weli wadnuhu ma ku xanuunay, wadna xanuun ma leedahay, ma tiraahdaa wadnahay xanuunaya intaa meelahan taabatid ama halkan mar walba ma ka caminaysa wadna xanuun, walaalkaa ma leeyahay, faamilkaaga ama anybody wadna xanuun muxuu yahay. qisadani waxay igu kaliftay kolley dhacdo aan arkay insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkii maxamed cabdilaahi, halkaad naga daawanaysaana waa dhuxul media. haddaad nagu cusubtay soo dhawow, haddaad hore noola joogtaan aad baad u mahadsantahay. wixii ra'yigaagana nala wadaag xagga hoose insha allahu tacaala. mar walbaynu ka wada qayb qaadana barnaamijka, sheerta iyo like-ta, subscribe-tana hanaga ilaawin insha allahu tacaala. asxaab badanna haddaad ka faa'iiday gaadhsii, wixii talo iyo tusaaleaan xagga hoose noogu reeb insha allahu tacaala. maanta barnaamijkeenii kolley maalnimo waxaan malaynayaa axada bay aniga ii tahay xaggayga, caawa siniini soo gelayso. aada iyo aad baan idiin salaamayaa. barnaamijkeena xogta caafimaadka waxaan kusoo qaadanaya mawduuc yar oo muhiima. waa inta badanna waxaan soo qaatay dhacdooyinka maogta aan la kulmay, maadaama barnaamijkeenu uu yahay wacyigelin eenu rabno. dad badan oo soomaaliyeed baa dhib haysta, intaysan xaalad khatara gelin say goobo caafimaad ay u tagaan. ay maanta dawooyin iyo qaliin halkan idinkama fulinayo, idima odhan waa idin qalayaa. meelo kala duwan baynu kala joogno, laakiin waxaan rabnaa inaynu iswacyigelino, qulubteena dhisno insha allahu tacaala. waxyaalaha inta badan aan usoo joogana aan idinla wadaago, maadaama aan ku abtirsado bahda caafimaadka. weli wadnuhu ma ku xanuunay, wadna xanuun ma leedahay, ma tiraahdaa wadnahay xanuunaya intaa meelahan taabatid ama halkan mar walba ma ka caminaysa wadna xanuun, walaalkaa ma leeyahay, faamilkaaga ama anybody wadna xanuun muxuu yahay. qisadani waxay igu kaliftay kolley dhacdo aan arkay insha allahu tacaala. si aynu la wada soconaba xanuunada waxa la yidhaahdo waa laysku khaldaa, xanuunada uurku jirta. qofkii asagoo caloosha xanuunaysa ku odhanaya kelida xanuunaysa, meeshii uusan si saxa u tilmaami karaynin, ama beerka iyadoo xanuunaya. marka waxaa la intan uurku jirta la yidhaahdo caloosha inta badan waa laysku khaldaa xanuunkeeda ama calaamadaheeda, ama gaas ha noqoto, ama beer xanuun ha noqoto, wadna xanuun ha noqoto, keliya xanuun ha noqoto, waxaad doontid ba ugu yar intaa calool ku jirtaa waa laysku khaldaa. qisada idinla wadaagaya waxay ahayd inaad kana digtoonaataan ay ahayd qof kamida dadka soomaalida inta badan caafimaad ku yimaada wadankan aan ku noolahay. gaas buu in badan lahay, waan ka cabanaya, gaas baan tabcaan lahay, problem badan, dawooyin uu qaatay. aakhirka adigu ku guulaysa inuu halkan yimaado. dhibaatadiisa ma aysan noqon gaas, waxaa la yidhi wadnaha ku xanuunaya, problem xagga gaasta weyn oo maanta laga dayriyo kuma hayo, laakiin waxaa ku xanuunaya wadnahayd. halkaasay xanuunayso oo culays iga saaran yahay, intan oo dhana gaas igu xumaata bay haysaa. marka intii oo dhanba maaha baa la yidhi. marka taasa waxay igu dhalaysay meelba maalintii noodka ku qortay, bal inaan idinla wadaago haddii lahaydma. xanuunkan wadna xanuunku uu fara badan yahay. marka dhowr qodob baan insha allahu tacaala calaamadihiisa idinkala wadaaga. haddaad isku aragtid markaad ku garanaysa inuu wadna xanuun yahay, gaas tirigii baad ku khaldi karaysaa, beer xanuunkii, keliya xanuunkii, inta halkan ku jirto o dhan baad ku khaldi karaysaa. marka kadibna xanuunaan kiisi ahayna waad sheegan karaysaa. mar walbana waa inaad dhakhtar la xidhiidhaa. waxyaalahan inaga dhaadhacsanayna ku maaha, laakiin waa inaad ugu ogaada insha allahu tacaala. marka wadna xanuunka marka laleeyahay qeybo fara badan buu leeyahay oo kala duwan, xanuunadiisu ku kala dhaco. laakiin kanaynu dul istaagna waxay tahay waa coronariga. wadnaha ayaa waxaa xidhmaya tuumbooyinkiisan dhiigga u qaada, dhiigga waraabiya, ama waxaa la yidhahda marka ama heart failure qofka ku dhaco valfiska. qaarba dhiiggan wareega markuu sameynaya wadnahu soo celiyo valfiskaasa valfis wax soomaaliya lagu yidhaha valfiskaasoo kale iguna dhib ka imanaya. laakiin si guud fariinteenan waxay tahay inaad qaadataan ay muhiim tahay. haddii aad calaamadahan isku aragtid, ha u malini gastric, ha u malini keliya xanuun, ha u malini laabjeex inuu ka hayo, ha u malini culays yaro meelahan kaa saaran inuu yahay, walaal waa inaad dhakhtar la xidhiidhaa fadlan. intaasaan idinka codsanaya haddii calaamadan isku aragtaan. marka wuxuu yahay calaamadaha kubanka inta badan. haddii mar walba markaad hadda soconaysid oo kale socodka caadi uu ku yahay, laakiin markaad rabti inaad meel sare fuushid, jaranjaro ama salaanadan ama jaranjarooyinkan guryaha hadda laga koroo kale, meel yaroo dalcadoo sare haddii aad ka baxaysid inaad meel fuushid, markiiba naqasku ku qabanayo, aad daalaysid, hinraag badan aad sameynaysid, oo calaamadaha koobaad wadna xanuunka. talabaada kale soo raacdana waxay tahay hadduu culays intan kaa saaran, culays aad u fara badan
weliba khaasatan markaad cuntid oo kale wuxuu ka oran markaan waxun oo kale culays badan baa halkan iga saaran kadibna laabjeex iyo waa gaas yar xun laakiin haddii culays badan halkan kaa saaran yahay neeftaaduna ay ku dhibayso waa calaamadaha ugu muhiimsan ee wadna xanuunka meel sare haddaad fuulayso mar walba qof xiiqayaa tahay markaas tiri aad jimicsi sameyna aad xiiqaysid dalcad sare aad fuulaysid jaranjarada aad fuulaysid waa kow wadna xanuun baad leedahay walaal dhakhtar la xidhiidh kadib dhakhtarku markaa wuu ku eegaya calaamadaha markuu eego waxa uu meesha ka saarayaa waxyaalihii gaasta ahaa iyo wixii adigu aad aaminsanayd marka uu ku qiyaaso uu shaybaadhkiisa kuu diro iyo physical examination kugu sameeyo wuu ka odhanayaa wadna xanuun baa hadduu intaa kaa waaye markaa gaastiguu imanaya laakiin xilli hore tag waxaan waqtiga ugu bixinaya waa idinka iyo naftaydaba insha allahu tacaala waxaa kale soo raaca inay neeftu ku qabanaysa nafyaraan aad samaysid xanuun badan inuu halkan kaa saaran yahay weliba dhinacan bidixda palpitation waxa la dhahaa baa jiro marmar moos in lagu yartaa taabanayo oo kale oo gariir yar aad sameynayso hal mar lagu qabanayo marka insha allahu tacaala aada buu inoogu soo badanayaa inagu xanuunadii aan faafi jirin bay kamid ahayd marka fariinteena waajibka eenu mar walba idiin soo gudbino waxaad inay idina qaadataan asxaabtana aad la wadaagtaan xilli hore saa dhakhtarka u tagtaan waayo halkan surgery iyo daawo halkaa idiima soo dhex marin karayo laakiin waa inaad xilli hore tag xilli naftaada wax laga qaban karayo waana xanuunada aamiska kugu soo geli karaya xanuuno badan baa lagu khaldaa inta aad soconayso waa inaad tagtaa markaad wax dareentidba goob caafimaad tag ilaahayna la kaaso insha allahu tacaala dhammaan calaamadaha aan soo sheegay weliba labadaasa ugu muhiimsan haddii aad leedahay wadna xanuun baad leedahay markaynu taladana qaadana insha allahu tacaala walaal dhakhtaradana ka agdhawaada insha allahu tacaala exercise iyo jimicsina samee mar walba haddaad sigaarka cabdidna jooji dadkan dhiikar kalena aada buu ugu yar badan yahay oo xanuunada wadnaha xitaa dhiikarkabaa kamid a xanuunada wadnaha ku dhaca oo dhiikarka qeyb kamida way fara badan yihiin marka jaranaal mar walba inaynu iswacyigelinaa muhiimadu ay tahay inaad sokortaada yaraysid milixda yaraysid pressurekaaga mar walba iska cabirtid aad samaysid wax la yiraahdo jimicsina aad samaysid insha allahu tacaala qof fiican oo caafimaad qaba bulshada wax u qabanaya baad noqonaysa insha allahu tacaala wixii aad mar walba doonaysa inaynu soo wada diyaarinana xagga hoose nagula wadaag aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aynu isu soo ducayn insha allahu taala haddaa ina wax ka faa'iidaan asxaabtaadana la wadaag naguna soo biir salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu